waxaana wanaagsan dhammaan meeshaan naga daawanaysan waa Hargeysa online maanta waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo stock market oo ah suuqa la maalgashto oo xagga online-ka ama internet-ka ah waxaanu ka wareysanaynaa maanta Cabdiraxmaan Daakir oo ah khabiir ka faalooda arrimaha dhaqaalaha oo ku sugan magaalada Ankara ee gobolka wadanka Turkiga. Cabdiraxmaan ma maqlaysaa? مغلية إنجنير كمال آدي آد بوماسي هاي waxaan ku weydiinayaa bal horta dadka waxa uu sharaxdaa dadka hadda wixii way ku cusub yihiin online-kiiba aad loogu sameeyaa xayeysiisyo sida Facebook-ga iyo YouTube-ka Soomaali ahaanna wixii way nagu cusub yihiin bal waxa noo sharaxdaa marka koowaad muxuu yahay stock market ama suuq la maalgashto. اوكي آد بوماسي هاي كمال هي شبكة حقيس أونلاين تدوينها أنا آد أيام سلامية جدهان هذا وصل على السؤال هذا ستوك ماركت كا أما س فوركس كا أما فوركس إكسشينج أو لسه كبير فورين إكسشينج لبعض تبادل وصل السعودان وحقيقي مادين وبارتي كيهين أونلاين تريدينج وحلو يرادا مكان عسيرة أونلاين badan ganacsigeena anaga ay naqaano iska qaab traditional oo iska maaragtay sida bakhaara in la leeyahay sarifka maaragtay magaalada maaragtay la fariisto laamiyada oo kale dadka qaarkood ay u sameystaan xirado hadda uu ka duwan yahay barnaamijkan ama systemka uu ka duwan yahay kaas waa adoo qolkaada ku jira gurigaada ku jira halkaas waxa ka sameynaysaa sarifkii oo wax badan ka duwan tii hore wuxuu kaga duwan yahay الريسك ده وكريسك بدنيه هاي وكذا بدون هاي فائدة وكفائدة بدنيه هاي ستوك هذه أصلا طوح وسامي إن الشركة لها وين يأتون كجوجل فيسبوك مايكروسوفت يو ماركتي شركة لها وين يأتون كإن أركتي جناح سعودي ريال أو ماشى كلام مقنعة وأكيد قاعدة كتسامي كم من الجريدة اوكي halkaas aad ka heli kartid faa'iidada uu ka heli lahaa qof Mareykanka jooga mesela oo shirkada sirriya lacag u darsaday adna lagu fududeeyay qaab online ah in saami u gadatid hadhow markuu saamigii kaco oo faa'iido maaragtay fiican gaaro iska joogsid faa'iidadan ayaan la baxayaa qaadanaya oo adoo markaa wadankaadi Soomaaliya jooga ama Turkiga ama whatever meesha doonta adduunka jooga العقد هذه اللي بيحكي كرت payment system كمان كعوضن كشقينية فوركس كان و سكو أي وي وبرايسكي العقد وحكوا ترى هل كان يورو دي العقد يورو ده هاي العقد بانك هاي بانك إنجليز ده وحكوا دولار تبغى وحكوا ترى جابانيزيان وحكوا ترى سويس فرانك العقد وين وأدوك عنك ومارت نيوزيلاند دولار أستراليان دولار العجلة صدام بقى available كان أنت بدل العجلة فوركس كان وحأي أسبوعان قاب بير لبلغوا أي أسبوعان يورو ده أكله هتي أرتينا سرستو أنا سرت دولار صالحا يورو to دولار فك وحفيرن سافرايس كده ما أنت حكيت شغال 1.12 صالحا بري وحفل ساين وجارو 1.125 واحد waxa sameynaysa marka buy waa sameynaysa marka order waxa ka jira qofku si dhex galo oo fahmi karo waa la buy garanaya lacagtaas waa gadanaysaa si ay markay u kacdo aad faa'iido u hesho waxa kale oo jira order isa dadku qaarkood isa malaysan karin oo in laga faa'iidi karo lacagta marka ay dhacayso doorada marka ay dhacayso iyadana qaab uga faa'iidid ayaa jira waa iska sel garanaysaa sel baa leedahay iga iibi اوكي marka systemkaas buy iyo sell labada orderka ugu waaweyn wax ka dhex socda suuqan oo qofka hadii uu fahmo istaraatiijiyado indicator system la isticmaalo oo lagu fahmo direction ka suuqa ayaa jira direction suuqa 100% lama garan karo oo adiga retail qof retailer ah kaliis ah iska ganacsada ah waxa laga yaabaa in adag tahay inuu iska garto kaliya waxa lagu gartaa indicator الاستعمالات شراء خبرة يدنا experience وحلي راه price action أو price action كhistory الهراء وسمين شراء قاب وسمين شراء أيوم ما أنت بدل سرعة ليا
qaabkii hore u samayn jiray baa fiirinaysaa daraasanaysaa adigana markasta oo aad dul fadhidid suuqan waxaa badanaysa in aad fahantid barayska sida uu u dhaqdhaqaaqo marka uu kor aadayo in aad fahantid marka uu hoos aadayana in aad isla markii fahantid marka faa'iidadii u heshid haddaa khasaaro geli lahaydna aad khasaaradii ta ugu yar uga baxdid waa gartay dadka badanaa way jecel yihiin inay ka qayb galaan horta businesska noocan ah laakiin waxay ka baqaan in maxay ahayd tolo ay khasaaraan oo khasaarada ayaa aada u badan hallo codkaada waayey hadda waa okay may maqlaysa hadda waa soo gali rabo laakiin waa maqlaa okay aan kugu celiyo su-aashii dadka badanaa way jecel yihiin inay ka qayb galaan maxay ahayd tolay businesska noocan ah laakiin waxaa aada u badan khasaaraha qof aada experience wanaagsan u leh mooyaane dadka badanaa aad bay u khasaaraan marka dadka soomaalida ee jecel inay waxaan ka qayb galaan sidey markaa u bilaabi karaan ay ugu qayb geli karaan okay waa good point su-aaliga aad iyo aad muhiim u ah weeye oo laga yaabo qof walba in aan laga helin macnaha waxaa rabaa inaan halka kusoo gudbiyo talo fiican waa filayo meelo kale haddii aa maaragtay saa u dhex wareegtid inaad si fudud ku helin taladaas waxa weeye sida engineer Kamal uu ka dhawaajiyey in khasaaraha uu mostly badan yahay 90% ama se ka badan ayaa la isku waafaqay dadka caadiga retailerska ee forex ka ganacsada in ay khasaaraan waa number aad iyo aad u weyn taasina waxay maaragtay keenaysaa in aynu fiirino anaga Soomaali ahaan numberkaas 90gaas miyaa ku wada jirnaa 10%ga soo haray miyaa ku jirnaa xagee ku jirnaa almost waxay u badan tahay inaan 90ga ku jirno Soomaali ahaan oo la khasaarayo khasaarihii marka qofkii uu galayaa wuxuu ku galayaa qaab waxaa ka jira meeshan yani hunguriga qofkii qabanaya lacagtan iska dabaalanaysa meeshan lacag weyn kasoo qabo qofkii isleeyahay lacag weyn si uu uga helo wuu heli karaa sax hase yeeshee waxaa badanaya markaa fursadda ah in uu khasaaro waxaa kuu sheegayaa 3 pointi oo muhiim ah qofkan sida uu khasaaraha u yareyn karo khasaaraha wuu jiraa laakiin waa in la iska yareeyo oo faa'iidada la kordhiyo qofku inuu isticmaalayo istaraatiijiyad oo balaan ku socdo istaraatiiji gaar ah oo tilmaamaysa when to buy when to sell goorma bay gareeyaa shaygan ama lacagtan ama stockan goormaasa iska sell garanaya waxaa kaloo jira oo muhiim ah wax la yiraahdo psychology ama psychology effect oo ah qofkan lacagtii markii uu arko oo kor aadaysa isagoo oo la sell ugu jiray ama se buy to ku galay oo arkay lacagtii hoos aadaysa waxa u muuqanaya minus then red numberskaas u muuqanaya oo lacagtiisa capitalkiisa ka go'aysa oo laga yaabo capitalkiisa dhan inay la kacdo laga yaabo qofkaas si uu isku xakameyn karaa marka tusoo kale ahaan isku xakameyn karin qofkaas mostly waa qofkii khasaari lahaa suuqaas qofka loogu talagalay uu dhamaanaya lacag kasta uu soo galay way ka dhamaanaysaa then waxaa la rabaa in uu qofku barto sida uu u xakameyn lahaa psychologically ama okay numberka saddexaad oo isna number aad muhiim u ah way risk management in adiga xadidid risk managementgaada tradekan ama ganacsigan marka aad galaysid lacagta heblaayo ama stock hebel aad gadanaysid waa inaad ka gadatid point fiican good entry activity then waxaa samaynaysaa khasaaraha aad geli kartidna aad xadidid khasaaruhu uu noqdo mid ka yar faa'iidada aad heli kartid then waxaa halkaa ka imaanaya risk management sidoo kale waxaa ka jira meeshan wax qofka kale advancedka uu sii fahmi karaa ama qofka sii dhex kala lot wax la yiraahdo lot size waxa ay gadanaysid wuxuu leeyahay value ama qiyaas ani waxaa gadanayaa 1,000 euro 1,000 euro 10,000 euro 100,000 euro mar kasta oo ay badan tahay capacity-ga waxa aad gadanaysid waxaa badanaya faa'iidada aad ka heli doontid iyo khasaaraha kusoo gaari kara labadaba way badanayaan marka saddexdaa qodob waxaa aad u jeclaan lahaa dadku inay si qortaan ay fahmaan marka ay forex galaan oo ay maaragtay suuqan iska balaartay dhex galaan saddexdaa qodob inay isla socdaan aysan maaragtay ka tegin waan gartay hadda tusaale ahaan dadka Soomaaliya jooga doonaya barnaamijka inay ka qayb galaan ama lacag ay ku darsadaan dabcan kulay waxaa jooga ganacsato aad u fara badan baa waddanka ku nool laakiin ma haystaan teknolojiyad iyo baanan la xiran caalamka oo lacagihii lagu kala xawili karo
kuwaasoo kale markaas siday u suuro gelaysaa inay ka qayb galaan oo kale ama ay maalgashiga ku samaystaan investment. okay waa su-aal muhiim ah. dadka Soomaaliya jooga hore problems kala duwan ba haysta. shirkadahan fududeynaya broker ayaa fududeeya in adduunkan maaragtay ganacsiga noocan ah qofku ka qayb qaato. Google ama Facebook stockiisa see u arkayaa way Mareykan ma joogo. then waxaa ku arkaysaa broker ba ku fududeyn oo arrintaas si toos ah direct ula leh direct contact la sameynaya platformka arrinta lagu sameynayo. then platform wuxuu ku fududeynayaa trade-ka aad ku gashay. okay Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan. waxaa la dhahaa waa argagixiso maaragtay pirate iyo maaragtay burcadbadeed waxa sidaa darteed restrictions kala duwan oo dhanka payment systemka ah baa ka jira. broker badan oo fiican waxa laga yaabaa in ay country markaas diiwaan gelinaysid aad ku dhex arkeen Soomaaliya aad ku dhex arkeen. okay then hadda waxaa suuqa adduunka la soo fahmiyay bangiyo xoogaa regional Soomaaliya yimid oo bangiyo caalami ah contact iyo xiriir fiican la leh. wax badan baa fududaanaya marka hadda waayaan dambe aad bay sidii hore uga duwan tahay. sanadba sanadka ka dambaysa way fududaanaysaa in qofkii Soomaaliya isoo jooga laga aqbalo brokerkaas. broker marka way kala fiican yihiin waxyaabo okay marka kala duwan yihiin baa jira. waxaa su-aasha ugu soo laabta ah qofkaas seebuu investment u sameynaya ganacsiga halkaa waasta ama Soomaaliya ganacsatada. horta hore ganacsiga uu marka investment sameysanayo waxaa la rabaa point dadka ka maqan sida hadda ay ku jiraan qofku inuu qaab guri soo gelin guri weyn soo gelin usan maaragtay istiin lacag weyn hal mar soo qabo. waa inuu percentage yar bangiga weyn bangi Barclays Pomelaine inuu ahaa sanad dhaweyd wuxuu ku xafladeeyay in uu forex market iyo stock market guud ahaan uu ka helay 3% uu ka helay. يعني 3% waa wax sanadan uu ka helay 3%. 3% hadda qof Soomaali hadii aad raahid $1,000 baa ku dhibanaya ama $10,000 baa ku dhibanaya lacagta ay u shaqeeyay. hadii aad dhahdid aniga 3% baa kaaga soo saaraya that means يعني $10,000 waa $300 marna buu leeyahay aniga lacag sanadan $300 ma sugaya ma yahay. marka adduunka waxa la rabaa in aydeeda la fahmo in percentiga uu yaraado waxa ay keenaysaa in khasaarahaadana uu yaraado oo maaragtay khasaare aad gelin oo markaa ka badbaadid. haddii aad laakiin ku fiican aad timaadid aad dhahdid aniga 10,000 baa meesha la soo gelaya ama $1,000 baa la soo gelaya bisha markay dhamaato 1,000 kale baa rabaa ama 2,000 oo kale baa ka rabaa u diyaar garow adigana ku kaas in laga cunto lacagtii zero maaragtay la gaarsiino. su-aasha kale oo maaragtay muhiim ah in isweydiiyo waxa weeye oo dadka qaarkood aysan ogeyn oo u baahan forex-ka khasaarihiisa maxaa looga sheekeynayaa. waxa looga sheekeynaya wax kale maaha investment-yada kale waxa laga yaabaa lacagtii aad gashatay capitalkii inuu kuu nabad galo oo aad sanada markii dhaata aad faa'iido helid ugu badan. investment-iga noocana forex market iyo stock market-ka lacagtii aad stock gashatay ayaa baabi'i karta. yani suuqa waxaa lagaa soo diri karaa adoo zero oo gacan maran. marka waa problemka ugu weyn oo la rabo in qofku targetkiisa uu u yareeyo targetkaada yare si khasaaraha uu u yaraado. waa gartay kolley dadka Soomaalidu waa qof horta qof lacag diidi horta ma jirto ama lacag lagu qaadanaya fadhi. tusaale ahaan haddii aan maxay ahayd toolay aan raahno qofka gelaya businesskan ma qof soo maaha inuu shaqeeyo oo ay kam soo galo oo maxay ahayd toolay oo lacagta hadduu khasaaro iyo haddii kala uusan tabayn mise waxaa la oran karaa stock market uma ka shaqeynaya 24/7 oo kale ama full time oo kale uu fadhiya. okay waa su'aal muhiim ah. su'aalaha isweydiyo waxa kamid ah stock market ama forex guud ahaan ma in noqon karaa full time job ani oo aad ka kasto ma jecel kara ma noqon karaa. yes wuu noqon karaa. wuxuu ku noqon karaa se ma aha hal mar qof inuu maanta intuu soo galo uu horey ka galayo ma aha. waa time bay qaadanaysaa. it takes time. waxaa jira koorsooyin paid ah iyo koorsooyin free ah inta way jiraan oo qofka lagu soo dhiso. waxaa hadda arkayay koorsooyinka qaarkood oo diploma gaarsiisan oo qofka ilaa $16,000 maaragtay uu bixinayo si uu u barto suuqa. kadibna laga yaabo in fursado la siiyoba qofkaas in shirkadaha waaweyn matrashaada waa sii furfurmaya in lagu siiyaba lacag adiga oo lacagtaas ku shaqee ma garanaysaa lacag weyn lagu siiyo $50,000 iyo wax lamid ah lagu siiyo lagu dhaho
aqoon lagu shubo iyo waa maadaama aad baratay kooraskan shaqeyso yani adduunka hadda wasiir then adiga haddii aad lacagtaadi caadiga ahayd la timi suuqan lacagtaa la imaanaysa doctore waxaa shardi koowaad ah inay tahay lacag affordable ah oo aadan deyn kugu soo gelin aadan dhul kusoo xaraashin yani wax necessary ah oo muhiim ah aadan ku baajinayn quuto ciyaal wax us ahayn yani carruurtaadii waxaa digsiga ugu saari lahayd dabka in lacagta aysan ahayn lacag yani meel dhigatay oo kaa soo xaraartay lacag noocaasa qofku ku geli karaa u shallaayin haddii ka gobato berri taasaa pointiga koowaada pointiga labaad waktiga marka uu soo gudbo oo experiencega uu qofka muddo fiican ku jiro waxa uu gaari karaa full time job si fiican psychologigiisa uu 100% isxakameyn karo then faa'iido yar iska qaato faa'iido khasaarihiisa uu garto marka uu jiro oo naftiisa xakameyn karo maalintaas qofkaas full time job uu noqonayaa cid kalena oo inuu u baahan yahay badanta waan gartay dadka horta Soomaalida horta way ku cusub tahay wada sheekadan Soomaalida waxay aad ay u isticmaalaan waxa lagu yeero hagbada wadankii iyo waxaan filayaa Europa marka dadka qaar haday u qaataan sidaa ka waran waa hagbado kale oo marna aad qaadanayso marna aad dus gareynayso ma isku mid ma noqon kartaa sheekadan iyo hagbada waa point muhiim ah dadka qaarkood waxaa laga yaabaa يعني marka la khasaaro in saaxiibka maalin dhow wuxuu ii sheegay yani akoon khasaaray uu ii sheegay lacag khasaartay uu ii sheegay then wuxuu yiri nin baa kala iweydiiyay warniyo wuxuu qamaar ku ahaa ma garatay ninkan saas oo kale yani wuxuu ayuuto ama hagbad qofku uu moodi karaa weey uu moodi karaa qamaar uu moodi karaa marka la khasaaro laakiin sida saxda ah hagbad ma aha dad waxa maqlay business qaarka Soomaaliya la keenay qaab hagbad ku shaqeyn jiray yani hebel baa loo qolaa qaadiya ninka loo boqol maalin boqof baa loo boqol siinaya hadhow qofkan lacag yar lagu soo wareejinaya hadhow shirkadda waa ka caada ama waxba la dhahayaa waa muddo tiriya shaqo siyaasadda badan ka dib u fikiraan oo suuqyaan website scam ah oo tuuga ah jira oo waxaas qofku ku dhahaya $500 dhigo markii maartay inta la gaaro waxa inta lacag wali ah bil walba waxa ku soo dirana $1 هذه لو بلو سدح لو $10 وصوت رشام بقولنا اللي جاهلي هلو هودو كبحياة قف كام ولا بلو كرينا ولا كونتاكت ولا وهي أوكي سيستم كان سيستم هالبلا ما هو نفس الريال دحمر أوفر 5 شن تريليون دولار العقد هو قياسي يكبرن بسوق دحوريته أنا واحد كان إن قف كان وسيف فضود وخص وسيف فضود هو كذا العقد زون دي وخسارة كرو waxa keeni kara weeydan hagbad maaha waa lacag riyal ah oo dhex ku dhex jirtid oo badweyn ah weey liquidity-ga ugu weyn soo adduunka ka jira way bangeeda adduunka ama mostly oo lacag weyn oo ku jira kuwa percentiga iyo 2% aan target ama target oo 10% 100% maradiniya lacag yar oo ku balance kareystaan marka $2 milyan marka uu ku galo 1% ka helayo ama 3% waa lacag huge ah oo noqonaysa so أكون ضروري وحاسبه ملايين واجرت هذا waxa badana la isla dhaxmara wadankan Mareykanka horta online ka aad hawlahan lagu kala qaata wararkan filaya xagga commentiga iyo wararkan la isdhaafsado xagga online ka waxay leeyihiin waxa soo baxay website aad u fara badan oo aad isku xayisiya kuwaas oo ah tuugo oo doonaya lacagahaagi in ay qaataan waxa iska leeyahay stock market-kii soo galbay leeyihiin hadda maxay ahayd tolo social media maxay ahayd tolo ay ku jiraan oo Twitter-ka iyo Facebook iyo marka qofkii bay arkayaan hadduu joogo Mareykan ama wadamadan Europe-ka ah qofkii bay eegayaan inuu shaqeeyo in kale kadib bay intii luuq galaan bay oranayaan haye maxaad qabataa maxaad ka shaqeysaa waxaan ku haynaa business noocaasa kuwa ma aragtay maxaase ad ka leedahay kuwa okay waa waxrun ka shay wixira aniga saaxiibkaya maalmo waxa arkay qolo WhatsApp waxa uu soo diray bal WhatsApp kiisa sax ku haray qolo Dubai degan waxay u soo direen WhatsApp waxa uu soo direen oo broker ah ku soo diray broker keena PDF u soo direen oo xogaa xog ku saabsan forex beta ay selo shaqeystaa oo loogadoodii waxaas ku yaalaan halkaas ka diiwaangelin
يعني waxa ay fiirinayaan advertise bay wax isticmaalayaan qaab intelligent ah bay wax ku raadinayaan kow in dadka horta dadka uga aanu jiraan dad run caali ah oo broker caali ah oo iska ganacsanaya dad saa ku raadinaya ma jiraan laakiin mostly dadka aad ku raadinaya oo dad soo waca oo maaragtay gargaaracidooda badan tahay waxaa la yidhahdaa waxay u badan yihiin waxa la yidhahdo market maker marka forex marka la joogo gudihiisa baa laba loo kala qaybiyaa brokerka ama saddex waxa ugu muhiimsan waa market maker iyo STB ama ECN STB iyo ECN-ka waxa ay u fududeynayaan shirkadahaas online platformkii aad ku ganacsanahay iyaga markaas in aad si real ah u khasaartid dan uguma jirto ama maaragtay waxa uu ka dhex dhacayo contractyadan ama trade-ka aad oo ka dhex dhacaya international banks maaragtay adduunka bangiyada ugu waaweyn ka dhex dhacaya trade-ka oo real ah dan khiyaano inuu sameeyo oo trade-ka lagu ciyaaro ama lagu khasaariyo ma dhacdo ama kuwan market maker-ka oo ah kuwa jabaqda badan oo qaylada badan oo dadka aad u soo waawaca aad u soo raadiya maanta dadka ayaa bartaan kamaal lacag 10 kun ku soo shubo lacagtaada waa yartahay badi waxaas ku dhahay waa market maker waxa dantooda koobaad ah in aad trade dan samaysid ko then in aad khasaartid market balance-kooda waa kordhinaysaa lacag ugu darasaa adduunka dhan waa laga ogolaya waxa weeye waxaa qaabka adduunka waxa yani burcad sharciyaysan baa maqlaya wax qaab noocaas u dhow yihiin in aan tiro fiiriyo marka way jiraan qof waxa la rabaa inuu financial consultant raadsado oo independent ah oo dhaho bal igala tali dadka noocan ah san si fudud u raacin Soomaaliya way jiraan qof taqaan ba maanta dadka ku qabaya shirkad ah oo tayba inay maaragtay been iyo wax maaragtay kaagos maaragtay waa loo joogtumaya waa iska raacaya lacag waa loo siinaya aniga dawo waa gadanaya ama waxba gadanaya lacag waxay u siinaysaa ana wadan ya farmashiga wax ka gadanaya misalna lacag oo siinaya oo kale weeye marka waa inay iska ogtahay waxyaalaha scam gareeyo in awal moodi waayaan Facebook iyo maxaa ku dhahaa Twitter scam waxa aad badan ka jira scam tiro badan ka jira oo in dadka laga wacyigeliyo baa marka forex marka qofku maqlo in uu dalab iska dhaho waxa ka fiican in uu information badan istiraadiyo macluumaad badan uu fiiriyo bal Soomaali uu fiiriyo dad kale ajaanib xataa fiiriyo oo Soomaali safa qof waxa laga yaabaa Soomaali ah inuu si kale wax ku soo laakiin ajnabiga waxa laga yaabaa si kale oo si fiican inaad ku aragtid oo qofku inuu search fiican sameeyo kadib sida uu ku qanco forecastna waxay u baahan tahay time sida haday soo sheegay 3 bilood oo yaraan 6 bilood sanad qofku waxa marka dhowr sano marka uu ku jiro experience fiican uu ku qaato wax maadooyin badan soo afriyo soo arko khaldamo maarta dhacdo kadib gacanta u fariisanaysaa wuxuu noqon karaa markaas si dibadda uu shaqeysto oo dad kale isaga la mid ah caawiyo waan gartay hadda tusaale ahaan hadda waddankan Mareykanka waxaa laga mamnuucay website fara badan oo online-ka aad loogu soo daadiyo xaysiiskooda maxay ahayd ugu horeyso qaar la yiraahdo trading system iyo trade forex iyo mid la yiraahdo bitcoin ma maqashay bitcoin-ka aad iyo aad waa kula socdaa waa maqlay ha bitcoin-ka haddaan kugu daro taas waxay ku shaqeeyaan sida ay Soomaalida qaar ba ay ku shaqeyn jireen sheekooyin qaar baan ku maqlay tusaale ahaan waxay ku leeyihiin $500 keen waxay ku noqonaysaa 5,000 ama 5,000 keen waxay ku noqonaysaa 50,000 sheekada waa maqasho ma aad iyo aad ha marka hadda bitcoin-kaas waxaa laga leeyahay Argentina laakiin waddankan waa ka mamnuuc dhibaatada kale ay leeyihiin waxa weeye waxay leeyihiin lacagta gasho laakiin lacagtaada arki maysid yani marka online-ka gasho lacagtii la arkaysaa maxay iyo numberkii iyo wixii wax ku darsamay laakiin dad tirada lacagtaa soo qaado ama bankigaagii kusoo shubo ma samayn kartid ka waran sheekada okay waa su'aal aad muhiim ah موضوعا بيتكوين كا iyo موضوعا shirkadaha la mamnuuco iyo waxa la halmaala inta bitcoin ka soo laaban waxa rabay inaa fiiriyo dadka shirkadaha forex oo wadamo laga mamnuuco la jira san wadan baa joogtaa Mareykanka joogtaa shirkad forex aku soo tiri karaa tusaale ahaan linkigeeda waxa ku kala ku forex diiwaangeliyan waxa arkaysaa inuu suuqu mamnuuc yahay waddankaani oo ka mamnuuc yahay oo tayada mamnuuc
waxa keenaya waxa weeye waddan walba regulator baa ka jira jiro maaragtay leh qawaaniinta dejisa dhanka forexiska regulation filter waddankaas points tilmaamaya 1 2 3 haddii 1 2 3 gaas uusan waafaqsanayn brokerkan waddankan wuxuu ka noqonaya forbidden lagama ogola pagekoodana waa la forbid gareynayaa qofkii ku gala VPN waxaas ama ka ganacsadan wuxuu noqonaya qof maaragtay dangila hadhowna maaragtay payment systemka maraykanka ka shaqeynaya ama waddankaas laga mamnuucay kuma helay ma receive gareyn karo anaga Soomaaliya nasiib daro kolley anaga waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay nabadii iyo xasilinta iyo maaragtay wax wadan hadda maaragtay la rabo in la nabadeeyo ko then regulation malahan oo dhinaca forexiska ama financial security system Soomaaliya malahan shirkad allaale shirkadii forex adduunka jira kuwa tuugada ah oo aan hayn all waa available bikii Soomaaliya lacagta Soomaaliya dan haddii money lagu sameynayo oo gabigeedaba system ahaan lala baxayo cid ka celinayso hoos ka dhigi karta ma jirto marka waana point aad maaragtay looga xumaado weeye oo waxaa ku talin karnaa in waqti ugu horeeya regulation noocaas oo kale la sameeyo waa regulation maaha in la dhahayo shirkado dhan baa waa in la dhaho 1 2 3 aniga maxaa ka faa'iidaya shirkadan ka dowlad ahaan shirkadana maxay iga faa'iido yani win ina kala faa'iido ama shirkada inay faa'iido oo laga leeyahay overseas adduunka kale laga leeyahay oo xaruntooda Qubrus iyo meelo kale tahay iyo Australia iyo meel kale yani aniga wadanka Soomaaliya aan faa'iido ugu jirto okay taa waa pointiga labaad waxa weeye bitcoin-ta hore waxa aad iyo aad u isticmaala waa payment system caadi ah sida bangiyada la isku diro lacag la isku payment noocaas kala weeye oo ka fudud oo waliba baptista يعني قفك بيتكوين والد له وبارك والد بالغ حسابيستا امسه يعني شنطه محل مال العقل وشبه بورصه العقل وشبه كره اونلاين بس ما يستنسى قف meeshu doonaa jooga adduunka inuu ku soo daro wixii qaadanaysa address wax loo baa isticmaalaa address oo ah qaab u dhasha cashwaay ama randomly u dhasha loo generate gareeyo baa jira addresskaas baa u diraysaa waxa leedahay igu soo shub lacagta degdeg addresskaas $1 ama $100 intii la doonaa lagu shubayaa limit male inta badan bitcoin in bitcoin ceebteeda koowaad waxa weeye malahan waxa la dhaho KYC oo ah know your customer adduunka Europe iyo Mareykan iyo aad looga isticmaalo in qofkan la garanayo cid marka iyo in la garto qofkan muhiimba ma waa la isku qariyaa bilcaks waa la isku qariyaa waxaan muddo isticmaalo dadka dambiyada waaweyn kala barowgada waxa dadka dila waxa qurcada waaweyn waxa soo isticmaalaan si aan loo ogaan ama loo iskan garan lacagaha bangiga dhexmaray waxa dhan aan loola socon waxay isticmaalaan bitcoin marka bitcoin-ka aad u xoog badan oo lacageed baa dhex maraysa oo ilaa haatan waxay ka mid tahay suuqyada paymentyada ugu shidan adduunka waa si kasta oo loo mucaarado Mareykan u diido ama China u diido uu shaqeynaya wasatan waxa weeye ku arkeen wax la isku wadaagsan karo wax lagu kala gadan karo then bitcoin-ta waxaa jira brokerada mostly haddii aad bitcoin lacag ugu jirto forex-ka waa ku jaban kartaa lacagta bitcoin-ta ku jabanaysaa okay way aqbalaan hadda waxa ay maqlayo meelaha qaarkood laga diiday hadda laga sheegaya Mareykanka oo kale laga mamnuucay waxa loo mamnuucay waxa weeye lacagta caadiga ah bi khalkhal ku sameynaysa malahan central bank laga xiriiro oo dejiya aragtay inflation ya jira sicir barar ya jira maxaa wax balance ah malaha cid xukunta oo banki xukuma ma jiro wax iska socdo iska haabaya weey so that waa dawladuhu ma jecla dawlad jeclaanaysa ma jirta absolutely coin in laga dhex isticmaalo wax faa'iido u jirta bangiyadooda ay khalkhal ku keenaysaa even waa aragtay lacagta hadda soo socota baa buuq badan si Facebook ay rabto Libra inay sameyso coin-ka cusub baa buuq badan dhalay xayir wadan Mareykanka ka imaanaya waa Facebook waa intaas milyan oo maartay billion gaari oo malaynay ku billion wax kamid ah oo dad ka diiwaan gashay intaas oo dad hadii helaan lacagtan wuxuu dollarku ku keeni karaa dib ama faa'iido magaratay marka lacagaha noocaas oo kala mid wax saa u badanayaan adduunka bangiyada adduunka aad ma jecla central bank gaar ahaan inay mamnuucaan baa markiiba ku soo waa gartay waa la isku dhacaa runtii yani tuugada iyo aad u isticmaalaan dhanka investmentiga ay soo keenisay
يعني waxa qofka wuxuu leeyahay 5,000 peso 10,000 baa ku gaarsiinaya way jirtaa yani bitcoin-ta hadda wixii marasay 10,000 iyo wax la mid ah minus okay marka ayahan intaas waxaa ku adkaatay baartooyin korna uma dhaafayso hoosna waa u dhaafay usoo dhici weyn عن 9,000 10,000 intaas ku wareegsan dhawaale price-keeda oo dollar halkii bitcoin then waa dhaweyd waxaa jirtay sanadan horaanteedii waxay bitcoin tu maraysay 3,000 megaad 3,000 xoogaa 4,000 then halkaa dad baa lacaga badan gashaday dadka lacagaha gashaday markii waagidoo 3,000 iyo soo gaartay lacag badan bay ka heleen lacag badan bay kala baxeen magarat marka way jirtaa in la invest garayn karo oo lacag aad bishii kadib misal 10,000 oo dollar baa gashanaysaa waa bay garanaysaa bitcoin then muddo sugaysaa 15,000 markii gaarto oo kale lacagtaadii in dollar garee baa leedahay iyo soo celi lacagtaadii ku soo noqon marka challenge-ga kirisaa sheegtay waxa weeye wadamada qaarkood ma aqbalayaan inaan lacagta bitcoin kala soo celin laakiin waxaa jira paymentyo kale dad exchange rates oo waxaa jira online ah qoladaas waxaa leedahay waxaa hayaa 10,000 oo bitcoin ah ama shan bitcoin baa hayaa waxa ay siisaa dollar commission 3% wax baa qaadanaya wuxuu ku siinayaa dollarka waxa markaa qaab kala qiimaysaa screen waxa la yiraahdo waa la isticmaalaa screen netala online payments oo lagu baxo hadda baa jira iyo kuwa kale oo kala ah baa jira iyaguna loo laakiin mar walba aad soo go'ay magiciisi dad qaarkood waxa jirta hada adduunkaas jooga oo Soomaaliya ka samaysta bank system Soomaaliya taneenaya magaratay oo iyaguna way sameyn karaan qofkii Soomaaliya lacag ku soo dhaco xawaalad baa qofkii loo soo dhigaya already waxa ma systemkii rajad oo ama central bankiga ma arki waa gartay barnaamijku waa gabagabo su'aasha ugu dambaysa kule dad badan baa isweydiinaya oo oranaya kule qaabkan waa qaab iska gambling ah ama sida khamaarka marka kuwa xagga diinta maxaad u malaynaysaa maxay ka qabtaa lacagaha noocan loo sameeyay investment minka وسؤاشة وحافلها سؤال هو يمسن معتي حلقة أما قيبتن ورئيسك هرتا فوركسكا مالدو موضوع يرأكار لي باتشري وها فوركسكا مرهم بها مسوا دالنتت يعني موحرون واحد شرميها مسوا دالنتت marka su'aashaas waxa uga jawaabay dad qaar oo soo weydiiyeen forex-ka hadii saa loogu khasaaray ma la dhigara waa qamaar yani ku nasiibka qamaarka waa taqaana forex group baa ku sheegaya qaybo waxa jira caadi ah trade caadi oo kale si adoo bay garaysan iyo qayb qamaar fun ah qayb ah jirta qayb qamaar ah betting baa yiraahdaa oo ingiriiska iyo meelo badan ka jira oo looga ogol yahay oo shirkado betting-ka caadi sameeya xataa Soomaaliya waxa malaynaa available ku noqon karaa laakiin dad galaya oo shirkadaha si diiwaangelinayaan weli ma arko marka betting waxay sameynayaan trade-kan baa waxa sameynaysaa waa bay garanaysaa waxa leeyahay 5 daqiiqo kadib iga xir bayga iga xir 5 daqiiqo la qabsanaysa 5 daqiiqo aniga miyaa ogahay yaa ii sheegay 5 daqiiqo waxan xagee u maraya marka waa qaab khamaar ah markaas ama ina dhaho trade-kan waa bay garanaya waxa sugaya ka bacdi shan ama bisha soo socota tobnaad 15 maanta 14 baa furay 15 soo socota ha iga xirmo waqti baa ku xanigta kuma xanigin faa'iido ikhtisaar minna dan waqtiga hadii la gaaro oo faa'iido ku joogo faa'iidahash haduu khasaaro ku joogo khasaaro ku xirmay marka taas oo kale waa qamaar oo aan wax biyaha ismarin tan forex caadiga ah oo trading system-ka istaraatiijiyada isticmaalayo wala bay garanay faa'iido la raadinayo qaabkaas waa qaab caadi ah وأن كمبل الحين كمبل المحون قناة قفكار مستحكمين وأيو وسكفر فرقوا عياره جيم موضوع مكرن صعب مركا كمبل بنقان صعب لكن محيك خطارته يعني أنا بخطواني يقول أهان لكن ما دام قفك واحد يعني فسألوا أهل الذكر أما صعد العلم يقول waanu adaa ku watee haddaan kugu daro mar sheekh la weydiiyey wuxuu yidhi waxay ku xiran tahay kolba company-ga aad lacagta ku darsanayso wuxuu ka shaqeeya hadduu khamri iibiyo kole lacagtaada waa khamaar waa markaa waa xaaraan hadduu qansiir iibiyo waa la mid marka waxay ku xiran tahay ayuu yidhi kolba marka waa sheekh magaciisa hadda waa iga maqan yahiin laakiin waa sheekh wadamada muslimka caanka ah marka su'aasha iyada la weydiiyay ayaan rabaa inaan barnaamijka ugu dambaysiyo su'aasha iyo jawaabta wuxuu ku jawaabay ma garat su'aashaas la weydiiyay waxa weeye waa run
horta hore stock marka la yiraahdo oo ah saami ana hadda masalan Soomaaliya marka joogo oo shirkad raba in saami ka gato ma helay fursad lama siinay waxaa lagu leeyahay saamiga waa la xiray maxaa ku dhahay sanad hadda dhamaatay hadii yani laga yeelo oo habartay iyo luuq soo maro waxaa leeyahay sanad hadda dhamaato iyo wax la mid ah ما الحلال كبر يعني تسيقنا تطلع وينس أم باوح شو ترسله أنا مثلا كنت أقول وثاقة أو شيء كتاس وين أو عنك أو العكس بدن له فهبين أو كبسوا كوكا دولار إن كامية صرنا في ولا ولا قصير لكن هذا وحوي واحد أدلو فقط إن استوكيد أتوك عالم أو تن أي كلهن هذا كنت دولار وثاقة هذا كنت وثاقة أنت بتقول إيه إنه هو قرار وثاقة ولكن صوب marka intu maxay ka qabtaan hortaadii stockan ama company-gan uu ka shaqeysan wax xaraan ah khamro iyo doofaar iyo waxaas uu ka shaqeysanayn hadii aniga gato saamigiisa stock yani fikradaas oo ku raacsanahay waa in laakiin iska ilaaliyo shirkadaha maaragtay khamrada daroogada qashinka intoo daroogada adduunka maaragtay qaab kale loo qabanay qaab idaan batira hatta reer galbeed taas waa mid waxyaabo kale oo lagu xaraameyn karo waxa kamid ah ama yani ay kaga bixi karto xaraanta forkis ee ka waxa weeye iswaaq wax yiraahdo oo habeen dhax habeenkii trade ku furan waxaan ugu furtay euro markatay euro dollar markatay anoon faa'iidada xiran ama khasaare iska xirin ba habeenkii sax 12 soo wareegtay dan waxa jira wax loo iswaaq lacag in lagu saaro ama lagu siiyo lacagtaas marka uu saarta ah waxay tahay bushi keentay oo wax aan la ogolayn diin ahaan la ogolayn oo lacag kira laga qaadayo habeenkii kira laga qaadayo taamarka bedelkeedii shaqadii waa fahmeen oo dadka muslimiinta dad aad u fara badan weeyeen oo ganacsi raba dan qofka hadii uu xaqiijiyo uu muslim yahay waxa laga qaaday iswaaq laga deynaya waa free account wax lagu account lagu la siinaya point kale oo dadka bulshada ku keena oo maaragtay isku qabsado waxa kamid ah leverage wax la yiraahdo iyo margin inta badan soo socda waa wax sile leverage waa maxay waa awood ay maaragtay la siinayo qofkan retailerka lacagta yar wata la siinayo si uu ganacsigan uga qayb qaato oo lacag weyn u helo ku dollar wata ba waxa la siinayaa fursad ah in $50 aad samayn kara maalintii qofka ku sameynaya waxa la siinayaa contract ah $10,000 $1,000 baa ku trade garanaya maxay €1,000 mana haysto awood baa lagu sameeyaa marka dadku isku haystaan isku qaldayaan madeyn baa brokerkan 10,000 miyuu mise waxa weeye wax kale dadka yiri marka waa deyn waa lagu qiimeeyay dadka yiri waa dadka xaraameeyay oo dhahaya forex halaga carabo dadka yiri waa awood oo only power weeye oo aniga dadka rajaxayo oo taageersanahay waxa weeye waa dadka dhahaya waa xalaal wala shaqaysan laakiin mid aniga point kale oo muhiim ah awood saaraya baa oo maaragtay xalaal xaraan haylakiisa qofkii uu ay tahay in laga qabto waa maxay waa markii uu qofkii u tareer garanaya si waali ah yani waxaan markaa dhexgashay game ku kula noqonaya dad qaar game kula noqonaya wixii iska furfuraya ka xirxiraya qofkaas oo kale yani wuxuu noqonaya qof balance gareysnayn psychology ahaan uu isku xiyaacay marka qofku arko in xaaladiisu minuskiisu kala yahay waa inuu faraha kala u nasto maalin laba maalmood ama isbuuca ka nasto oo dib maskaxdiisu u soo ceshado oo markasta khasaaraya yani marka khasaarahaas waa ina xakameyn kartid marka waxa la dhaho culimada qaarkood sheegaan qarar waxa la yani in ku kadsoomayo qof lacag weyn baa $1,000 waxa ka sameynaya $2,000 baa ka sameynaya qofku isdhaaya waa qarar badweyn buu soo dhexgalaya lacag hal mar uu iska soo buro isleeyahay adduunka iska buro ma jirto tartiib hadaba ku socon waxa weeye gedkii orod lagu fuulaa orod lagu soo tagaa taas hal mar taagto waxa weeye inay zira garaacdo iyo u badan tahay nimanka hadda nimanka Mareykanka oo nin hadda magaciisa uga maqan yahay waxa jira yani muddo yar uu sameyn jiray $1 million $2 million $100 million ka sameyn jiray forex okay ninkaas kale marka maaha in aad tiraahdo waa wari forex $2 million baa ka sameynaya dollar ninka maxaa ku dhacay waxa ku dhici jiray inuu zira garaaco $2 milyan hal maalin zira ka soo istaagay baa dhici jirtay okay dan waa wax weyn aad badweyn ah lacag weyn hal mar ka lacag weyn hal mar ka khasaaray kale waa Warren Buffett kale oo ka taajir
SNP waxa la dhaho oo ah 500 oo shirkadood iyo wamaazada wixii ka badan oo Mareykan ah oo Google iyo ku jiraan iyo Yahoo iyo waxaas ku jiraan Microsoft shirkadahaas waxa isku dhaafay 500 SNP da marka wixii leeyihiin tareeb ku gaar ah oo indices ay ku dhex jiraan indexkooda gadanaysa indexkooda inta badan waa maxaa yeelay waa dawlad adag oo ganacsigooda adag yahay inta badan kor u soconaya ganacsigooda marka waxaa la fiirsadaa kaliya mar uu soo dhaco si loo baygareeyo oo loo gato dadka marka SNP da intaas ku waran baa ka taajimay SNP oo milyaneer ka noqday aad baana waxa la yaabaa social media na weerartay YouTube-ka ganacsigiisa iyo soo u taagtirayo in oday qabay weeye يعني العيب بدل كهذا والريسك مانجمنت يعتبر سميه وكفتو وين تو باي وين تو سيل انت ريجي قرني اقرا ستوكن اما سي كارنسي العكتن قرني بقى كبخا waxa sidoo si fiican u karto naftiisa waxa qaban karo waa qofkii lagu talbay doorkiisa stock market online waan gartay inta waxa noogu dhamaaday barnaamij aan uga hadlaynay stock market-ka ama suuqa la maalgashto oo waxa khadka noogu jiray Cabdiraxmaan Daakir oo ah aqoon-yahan ka faalooda stock market-ka kuna takhasusay maalgashiga caalamiga soo ku sugan magaalada Ankara ee wadanka Turkiga Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay Kamal iyo shabakada Hargeysa online aad baan ku salaamay assalaamu calaykum